بسم الله الرحمن الرحيم قلبتو جمعة سجال توان كبشة تضباط لبكم لبعتني أفر وح جودي قدرشين كمدة حبنان بيك يسوي مادين شير دق دقة هيوقع سنين أرمها والله حسبي السياسة ضايع كودان سدح الدقمو جرو دنجري جذب شيران تاسو وقع سنين حالة سوكر لا والله حيرا أنشحة والله جودي ونوح جاري قوان ودقان سدان جناح حسب السياسات ujeedo ganaax xisbi siyaasadeed gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka dawladda Puntland markuu arkay qodobka 114 farqadiisa koowaad xarafkiisa ta ee dastuurka dawladda Puntland oo u dhigan sidan gudiga doorashooyinku wuxuu leeyahay awoodda ku dhaqmidda arrimaha doorashada xalinta khilaafaadka go'aaminta xuquuqda iyo ganaax qof kasta oo ku xadgudba xeerarka doorashooyinka markuu arkay qodobka 8aad farqadiisa 7aad ee xeerka gudiga doorashooyinka una dhigan sidan ganaaxyo maamuleed oo la saaro xisbiyada ama muwaadiniinta ku xadgudba hawlgalka doorashooyinka markuu qiimeeyay cabashooyinka iyo cadeymaha ay soo gudbiyeen xisbiyada siyaasadda iyo murashaxiinta qaar markay u cadaatay in xisbiga ka ku xadgudbay xeerarka iyo habraacyada ololaha doorashada iyagoo olole aan maalintoodii ahayn ka sameeyay deegaanadan hoos ku xusan koow deegaanka Xaji Khayr labo deegaanka Baqbaq saddex deegaanka Uskure afar deegaanka Dalsan shan deegaanka Baarweyn lix deegaanka Budumbuto oo dhamaan ka tirsan degmada Dangorayo deegaanka Kalabayr Birta Dheer Rabbaable Ilma Adeer iyo Xalima Dheer oo dhamaan ka tirsan degmada Garowe markuu tix raacay degniintii gudigu soo saaray 17 July 2024 haddaba gudigu isagoo ka duulaya qodobada sare ku xusan wuxuu go'aamiyay in xisbiga ka uusan olole ka samayn karin maalinimada axadda 21 July 2024 dhammaan deegaanada kor ku xusan in xisbiga ka uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $5,000 waana inuu ku shubo akoonka gudiga muddo 24 saac gudahooda wabillahi tawfiiq waxaan kala rabnaa inaan uga faa'iideysano munaasabadan inaan degnin u dirno dhammaan xisbiyada muddada kooban ee ka hartay ololaha inay sameeyaan wax ka baxsan anshaxa ololaha taas oo aanu ilgaar ku hayn doono muddada kooban si doorashadu ay u noqoto ololuhuba kuwa hufan oo ka hufan wax kasta oo lid ku ah hufnaanta iyo habsami socodka ololaha iyo ugu dambeyn doorashada sidoo kale waxaan rabnaa inaan degnin u dirno maadaama muwaadiniin badan oo codbixiyaal ah oo xaq leh ay ka soo cabanayeen murashaxiinta qaar ay ka tirsanayeen hanjabaad ama handadaad iyo cagajugleyn inaanu arintaas degnin kaba dambaysa ka soo dirno cid kasto hadda kadib ay ku cadaato inay arinta ku kaceen ama cadeymo lagu helo la ganaaxi doono si adagna loo ganaaxi doono ayna mudan doonaan ugu dambeyntii in laga joojiyo seejooyinka inay ka tartamaan maalinka doorashada wabillahi tawfiiq aad iyo aad baad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.